marka ninkan odagaa dhambaalkiisa marka la soo koobo waa runtaa la sheego gabadha marka tusaale kale ku siinaya erayada uu yiri waxa kamid ah gabadha yaan lacag la siin hadii aadan gabadhu aysan xaaskaaga ahayn waa sax gabadha hadii lacag la siiyo hadaysan xaaskaaga ahayn waxaad ku horsatay guurkii guursanay waxaad ku qasbaysaa in ay tagto meel kaleeto oo ay badato dhilaysiga inuu barto waayo ninka ragga ah markuu gabadha lacag siinayo asna wuxuu ka rabaa intooda badan laakiin in wanaagsan oo lacag siisaa jirta sababta u siinayna adu waxaad ka fiirisay dhanka xumad ka fiirisay laakiin dhan wanaagsan baa laga fiirin karaa Soomaha ma balaba dhan wanaagsan ba gabadha aad lacagta siiso la dhisay ninkaani ma aha nin macna xaraamiya oo ka raba gabadhi inuu ka dhilaysto gabadhi uu lacag siiyo lacagta gabadha aad siinayso maxay ka keenaysaa markuu warsa waxay keenaysaa gabadhaasi guurkii inay ka daahdo waayo gabadhii waxay haysataa wixii waxyaabaha guurka loo galo waxa kamid ah qofkan inuu ku asturan yahay inuu noolaado inuu lacag helo inuu hanti helo hadii aad ka qaado marka dhiirigelintii ahayd in ay macnaha lacagtii iyo wixii aad meesha ka bixiso adigu aad siisay adoon qabinin waxaad ka hor istaagtay guurka ay guursanayeen hadallada iyo waxyaabaha hadda ninkaas uu isticmaalay waxa kamid ah hadii aad gabadh lacag siiso waxa tahay daanyeer ma la qabtaa in ninka gabadh lacag siiyo uu yahay daanyeer saan hore kugu sheegaba erayada la isticmaalo waa kala duwan yihiin laakiin waxaan aaminsanahay haddii gabar aan walaasha ahayn hooyada aan ahayn ama aan ku dhixin lacag hadaad siiso waxaad dhibaato u geysatay bulshada Soomaaliyeed waxaad dhibaato u geysatay diinta Islaamka lacagtaasi waxa kaliya ka soo hari kara waa inay sadaqata oo qof u dhibaataysan aad siisay macnaha gabadha Islaamka ee walaasha ee dhibaatadu haysato hadaad wax ku sadaqaysato dhibaatadaas ka cawd adigoo ujeedadaadu kaliya ay tahay inaad sadaqaysato waxaani waa sax laakiin gabadha markaad u siinayso lacag adigoo oo macnaha dan shukaansi kale waa ku qaldanta waxa la rabaa lacagtaasi inay timaado markaad guursato kadib maxaa wacay gabadhan aad lacagta siinayso adiga lacagta ka qaadaysa nin kale lacag qaadaysa mid kale ka sii qaadaysa adiga kaliya ma wax laga qaaday lacagta waxaad marka ka qayb qaadatay gabadhaasi inaysan guursan waxaad ka qayb qaadatay bulshada inay fasaado waxa laga yaabaa gabadhaasi inay ku dhacdo dhilays inay ku dhacdo oo hadii aan lacagtaas la sii lahayn aysan ku dhici lahayn waxaad marka tahay qof ka qayb qaadanaya kharibaadii bulshada mid kale to lacagta aad siinayso gabadha adigu aadan qab hooyada walaalaha gabdhihii kula dhashay ayaa ka baa mana aha in bulshada saas loo fasaadiyo dhambaalka marka ninkaas uu wado micnaheedu waxa uu yahay hadii la qaato waxa soo baxaya guurku inuu bato waxa soo baxaya dhilaysiga inuu yaraado waxa la rabaa qofka marka uu hadlayo lama fiiriyo macnaha ereyada uu leeyahay maxay tahay ciribta ka dambaysa maxaa ka imaanaya dhambaalka ninkan uu wado inta ku dhagan marka oo maanta ninka ku dhagan waa intii waxa jira dad badan oo ka shaqeysta dhilaysiga ka shaqeysta jira oo gabdhaha jirkooda iibiya waxa jira gabdho ayagu ku shaqeysta oo sidaas u shaqeysta dadka ku dhagan marka asaga ku daba dhagan waxaan intooda badan markaan fiirinay waa gabar aan xijaabnayn oo qoorteedu qaawan tahay ama kuwii niikinayay oo surxayay waa dadkii ku shaqeysan jira waxaas waana in yar waxaan rabaa inaan ku daro intaas bulshada Soomaaliyeed gabdhaheenu intooda badan waa gabdho dhowrsan cafifooyina wanaagsan ka xishoonaya inay lacag qaadaan gabdhaha Soomaaliyeed ee Islaamka ee fiican 90% hadaad u tagto maanta lacag soo xukun maxaad siinaysaa ayagan ka rabin inta marka arintan ka hadlaysa oo bulshada kharibtay oo la rabo in laga qabto waa in waa maasanta waxa ka soo qaadba ninkii gabadh bay hasaawo iyo shukaansi u dhaxmaraya ninka wanaagsan man ka fiirinayna wiilkiina waa wanaagsan yahay gabadhina waa wanaagsan tahay tusaale gabadha suuqay soo aaday way adeegatay lacagtii ay waxa weeye isticmaalaysay baa ka dhamaatay wax yar bay u baahatay wiilkii ay hasaawayeen ay isjeclaayeen bay la xiriirtay waxay tiri waxaas igu go'ay oo iga dhiman ee soo dir waxa weeye aan waxaas iga dhiman aan ku buuxsaday xaq ma u leedahay inay saad dhahdo iyadu isagu xaq ma u leeyahay inuu u diro absolutely xaq ma laha ayaduna xaq ma laha waana qalad waxaana badanaa marka aad tusaalaha soo qaadanayso waa saxan tahay thank you very much tusaalahaas waxa weeyaan gabadhii shoobinaya usually gabadhu marka ay cideeda u soo adeegayso oo reerkii cuntadii soo iibinayso nin islaamid ma wacdo ilaa aabbaheedii hooyadeedii familkii joogo cuntadii ayaga u dhiib lacagta kala soo baxlay marka ay wacayso suuqa inta aaday shoppingka samaysanayso waxay ninka u wacayso waa shoppingkeeda waa wax isku xoqi lahayd barfuunka iyo catarka marsalahayd waana kaliya ma aha xataa in ay macnaha wax qaldan tahay oo wax diinta islaamka soo jeeda waayo waxaad ku caawinaysaa gabadhii inay isxoqdo waxaad ku caawinaysaa inay noqoto dhilooyinkii ilaahay uu sheegay waayo gabadhu markay banaanka marayso iscarfinayso waa dhilo ilaaha noo sheegay Safiyaan dhanka wanaagsan ka fiiri dhan wanaagsan ma balaba adigu dhan wanaagsan iga tus gabadha marka lacagta la siinayo ma waxay igala hadlaysaa adigu waxaad igala hadlaysaa dhilaynimo isxoqid iscadayn wax noocaas igala hadlaysaa
laakiin anigu waxaan rabaa inaad dhanka wanaagsan ka fiiriso hadda dhan wanaagsan ma balaba waryeelkaasi dhan wanaagsan oo leedahay gabar shopping iibsanaysa intay ku soo wacdo shopping kala isku cadaayun kaliya ma hanagu waxay rabtaa mid kale isku carfiyaha hatta barfuun haad ma bal loogu talagalay inay iscarfiso waxa loogu talagalay gabadhu inay iscarfiso gurigeeda markay haday dhar ay ku labisato xiratada ku gadanaysa ka war dharka ay ku labisato hooyadeeda abeeda wiibinaa walaalaheeda u joog hadeen hooyii aaba lahayn hadaysan hooyii aaba lahayn guursato markay guursato ninka dharkaas uu lama gaarin wali maba dhigi kartid lama gaarin because gabadhu waa qaangaar nin awoodii ay ninku wacato ku tiraado lacag soo diray leedahay ma dhahdo kalsooni bay u dhahdo kalsoonida kii guurka ka fiican maba dhigi lama gaarin guurka hadda wali kaas fiiri dhinac kasto ka fiiriso meel positive ama wanaaga ma laha gabari inay nin lacag weydiisato inta soo wacdo ay tiraado waxaasan raba walaal inuu iibsado lacagta isoo dir asna sabab ugu dira ma jirto ayaduna sabab ugu qaatay ma jirto haday wacanayso hooyadeeda iyo aabaheeda walaaleeda wacdo laakiin nin ajnabi ka oo lacag u soo diraya waa qalad fundamentally qalad waa meel laga fiiri dhinac wanaag oo laga fiirina ma laha